حيري اوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو wanaagsan wada wanaagsan so waxaan doonay maanta halka inaan kaga soo gudbiyo revision misana muraajaco ahna markaasi muraajaco misana markaa ku saabsan office-ka loo yaqaan Microsoft Windows ardaydu guud ahaan qaybaha markaa ay ka wada kooyeen waxa weeye full time-ka iyo part time-ka intaba waxa uu soo wada dhamaaday waxa weeye qaybtii koowaad ee buugii koowaad oo markaa loo yaqaanay Microsoft Windows ilaa iyo waxaynu soo qaadanay ilaa iyo 15 oo practical aynu soo qaadanay sidaas aynu markaa aynu u gudbaynaa insha Allah aynu u gudbaynaa markaasi wijiga labaad misana buugeeni labaad aynu ku baran doono insha Allah Microsoft Office Word sidaas darteed inta aysan loo gudbin buugga aadka muhiimka u ah misana qaybta Office-ka aadka muhiimka u ah ee loo yaqaano Microsoft Office Word loo yaqaano inta aysan loo gudbin Office-ka aadka muhiimka u ah waxaa marka laga rabaa ardayda guud ahaan qof kasta oo markaa dhameystay Microsoft Windows oo ahaa buuggeeni koowaad inuu exam-ka uu fadhiisto exam-ka uu fadhiisto istijaabiso oo haddii natiijo fiican aad keensto waa soconaysaa laakiin exam 100 lagu saxay hadduu fadhiistay 20 keenti 10 keenti waxa weeye waa inaad dib u laabataa oo dib markaasi aad ku ekaataa buuggaagii koowaad inaad ku ekaato oo si fiican soo barato marka insha Allah koorsada waxa weeye group-yada markaa koorsada wada qaato waxa weeye qaarna waxay dhigtaan 5 waqti sida caadiga group-yaasha qaar sabti caadi leeyihiin qaarna isniin iyo talaado leeyihiin qaarna waxa weeye khamiis jimce leeyihiin sidaas darteed guud ahaan isku soo wada doob ardaydu waxa weeye kuwan habeenkii dhigtaan oo khamiis jimcaha sidaas darteed guud ahaan ardaydu oo dhan waxay geli doonaan exam markaasi testa oo laga doonayo arday kasta inuu exam-ka u fadhiisto si markaasi aynu ugu gudbino markaasi qaybta labaad waxaa jira markaa boqolaal arday oo Chinese weli loo leeyahay oo weli Chinese raadinayo misana waxa weeye ayaguna doonay inay ka faa'iideystaan koorsadan oo free-ga markaa inay ka faa'iideystaan ayaguna aad u jecel anaguna aynu jecelnahay in marka ardayda ay noqdaan ay ka mid noqdaan ardayda macadka laakiin si waqtiga oo aad cariir u awgeed ay weli aysan u suurtagal lahayn in marka ay ka mid noqdaan ardaydu sidaas darteed ardayda de waxa weeye hadda koorsada buugga dhameystay si toos ah koorsada u qaato waxaan markaa aan fariin u diray waxa weeye ardayda maqan galaasayaasha ka maqan galaaskii 8 arday loo tirgalay haddii 8 ka arday aad ka maqan tahay oo hal maal aad maqan tahay 2 maal aad ka maqnayd okay waxaan rabnaa insha Allah exam-kan waxa loo wada xaadirin doonaa group-yada si marka ayaga ay yihiin group kasta waa la xaadirinayaa inay 8 ka arday inay joogaan مثلا 10 arday haddii ahayd 10 kooda inay joogaan ardayga ka maqnaado marka insha Allah booskiisii waxaan ku buuxinaynaa ardayda kale markaasi jecel markaasi in maada ayuuna bartaan ay markaasi ayna ka mid noqdaan ardayda iskuulka soo marka waxay noqonaysaa arday kasta marka haddii ustaadaas ka maqan tahay waa inaad soo xaadirta exam-ka aad gashaa oo waxa aad markaasi aad istijaabisaa si markaasi hore aad ugu socoto insha Allah exam-ku aad buu sahlan yahay ilaa iyo waxaynu soo qaadanay 50 qaybood baynu soo qaadanay 50 qaybood oo practical aynu soo qaadanay insha Allah waxaynu ka keenaynaa misana exam-ku marka waxa lagu keenayaa waxa weeye 10 ka mid ah maadaama imtixaanku yahay imtixaan practical ah oo qoraal aysan ahayn waxaa la keenayaa kaliya waxa weeye 10 ka mid ah 10kaas haddana waxaa loo kala qaadanayaa qofka nasiibkiisii waxa weeye wixii ku soo aado exam marka soo fadhiisto waxaa lagu dhahayaa waxaan ku hayaa waxaan hayaa warqado ay ku wada qoran yihiin A B C D E F mid ka dooro okay warqadii marka adiga doorato wixii ku qoran baa lagu weydiinaa insha Allah tobankana waxa ugu horeeya number 1 waxa ugu horeeyo qodobka ugu horeeyo waxaan leenahay sayid qodobka ugu horeeyo waxa weeye to hide in marka aynu qarino waa to hide in aan qarino all icons on the desktop okay dhammaan icon-yaasha shaashada saaran oo dhan inaad qariso ayaa laga rabaa marka waa qodobka ugu horeeyo weey
okay waxa weeye ina qariso maxaa weeye dhamaan icon shaashada oo saaran aynu shaashada aynu tagno insha Allah aynu sameeyno waxa laga rabaa isaadi waxyaabaha shaashada sidaan u saaran oo dhan ina qarisa laga rabaa sida u qarinaysaa waxaad tagaysaa insha Allah meel banaan tagaysaa meel banaan oo halka aad tagaysaa meel banaan meelaha ka mid ah shaashada meeshii banaan aad tagaysaa marka shaashadii meeshii banaan aad tagtana waxaad leedahay isaadi right click baa leedahay right click kadib halka waxaad ka dooranaysaa view baad ka dooranaysaa view markaad ka sii doorto waxaad ka sii dooranaysaa meesha ku qoran tahay oo waxaad check aad ka qaadaysaa oo uncheck aad ka dhigaysaa halka ay ku qoran tahay show list of icons sidaas ay iconation dhan ay ku baxayaan marka soo celisna meel banaan tagaysaa right click leedahay soo ma dhibadna okay waxaad tagaysaa view kabaad halka ay ku qoran tahay dhinaca geeska show list of icons baad ku rufanaysaa sidaas oo soo celinaysaa waa su'aashadii koowaad su'aasha labaad aynu gudubno su'aashayni labaad ayaduna waxay tahay la eeg waxa weeye waa to create a new folder waxa weeye to create ina marka adiga aad abuurto a new folder cusub inaad sameyso okay folderation hadda halka aydan ka muuqdo oo kale aynu sameeynaa waxaynu tagaynaa markuu horeyso meel banaan raadinaysa waad filaarta dulgeynaysaa right click baad leedahay right click marka hadana waxa ka sii dooranaysaa halka ustaadi new baad ka dooranaysaa new waxa ka sii dooranaysaa new marka joogto halkaan u jeedaa dhinaca geeska wardaysaa halkaas tagaysaa okay halka marka joogto waxa dhacaya ardaydu markay for ay ku ruftaan ardaygu inuu filaartii raadiyo oo forkii dulkeeno de waxa laga yaabaa inaad ka gaari weyso magaca marka forka inaad u bixiso ustaadi waxa halka marka joogto for aad joogto markaad click aad ku dhacdo qor magaca doonayso adoo meel kale aadan taabanin oo muuska aadan taabanin waxaad qoraysaa for markaad click ku dhacdo qor magaca adiga forka u bixin lahayd for kasta magac baa loo bixiyaa u garato forkaagi hadda click aan ku dhaho waa kaas forka geeskaasu yaala wuxuu u diyaarsan yahay in magac loo bixiyo okay magacan bixinaya sawaxan soo qornay waxyaabaha sirkan soo qornaya hadda magacan isaas uma bixinayo waxa soo qortay dd ku qortay meel banaan tagaya marka qorto magac ku qorto meel banaan tag laba option ku banaan ina inta aan dhahdo misal meel banaan aad tagto kaliya ku dhahdo forecast sidaas marka adiguna marka usayd aad ku sameyn kartaa aad ku hagaajin kartaa okay waxaan oo soo xigi doonaa insha Allah waxaan oo soo xigi doonaa qodobka saddexaad aynu oo soo xigi doonaa qodobka saddexaad aynu marka aynu isla arkaynaa qodobka saddexaad aynu insha Allah aynu isla arkaynaa hadii aan gaarsiyo bal qodobka ila eega okay qodobkan waxa weeye waa to active calculator misana to start calculator ka inaad soo kiciso oo marka calculatorkii abrang aad keento okay markuu horeyso waxaynu marka aynu tagaynaa insha Allah waxa loo yaqaano halka aynu tagno bal aan qorno horta qodobkan si qorno ko aan ugu soo hado waxaan dhahnay qodobkaad wuxuu ahaa to hide all icons kan labaad wuxuu ahaa to create a new folder sameyna sameyso qodobka saddexaad marka waxa way isagana waa to active inaad soo kiciso waxaad soo kicine calculator ka laga doonayaa inaad soo saarto calculator okay waxa laga doonayaa waxa weeye marka calculator ka inaad soo saarto same calculator ku soo saarayna waxaynu tagaynaa aynu halka aynu tagno shaashada halka markaynu tagno qaybtan xariiqdan waxa loo yaqaanaa taskbar xariiqda madaxa saaran taskbar loo yaqaano soo hadii kor aad ka wayso waxay saaran tahay qaybta hoose halkaas ay saaran tahay hadda aniga kor de waxa weeye shaashada qaybtan hoose screen waxa uu recording-ka waa ka jari sidaas darteed waxa weeye taskbarkii halkaas u yaala مثلا waxaad taabanaysaa automatically halkaas taabanaysaa halkaas start button-ka meesha menu halka geeska tag kali kode oo taskbar kamid ah meesha maxaa qoray marka kal aad ku qoray kal asaga qoraysa kal marka qorto qor xagga maxaa u jeedaa maxaa ku soo baxa calculator kali ku lebes waa ka ku soo baxa waa inta yarna sameyn karto badan kale riix bas badan ka riix badan kana riixisa aan ku tusay badan ka riixisa
si toos aan ku tusiyo haddii calculator soo kicinayso saad eeg marka sidan uu yahay fiiri markuu sidan uu yahay sida markuu uu yahay macaawe keyboardka dee halkaas taabanayday halkan baranka ma jeedaa daaqadaha la moodo window keys-kana taabana baranka loo yaqaano kaliya haddaa ku dhahdo waa ka dhinaca geeska waxaa kaaga soo baxaya start buttonka kaaga soo muuqanayo marka cal ku qor meeshaan geeskan waxaa qoraysaa cal ku qor cal markaa ku qorto qor inta fiiri marka maxaa kaagaas yaalo calculator isku dhufo bes waa intaa dee inaad saa usoo kiciso okay soo ma jeedido okay qodobkan waynu ka soconaynaa aynu isla aragno qodob kale aynu isla aragno qodob kale aynu isla aragno qodobkan waa qodobka wuxuu noqonayaa qodobkan waxa uu website waa qodobka afraad waa to change your the background of the desktop aad u sahlan yahay qodobkan waa to change inaad bedesho maxaa bedeleysaa the background means waa sawirka shaashada saaran weeyaa of the desktop sida sawirka shaashada saaran bedeleynaa sawirka aad shaashada noo saaran soo ma jeedino aan bedeleynaa meel banaan tageynaa waxaan leenahay fiiri meel banaan halkaan tagno right click aan dhahno waxaan kasii dooranaynaa halkaas personalize kadibna sawirada sawirka jecesha ku dhufo aan hadda midkaasaan dooranaya okay close ka dheh sidaasa sawirka ku bedeshay aad u sahlan yahay qodobka waynu ka gudbaynaa insha allah saysan video aysan u dheeraanin shan aynu gaarno shan waxaa inoo qoran waa to make icons iconation aan ka dhigno waa to make aware waa to make icons marka inaynu ka dhigno maxaan ka dhigaynaa large haye medium haye iyo maxaan ka dhigaynaa small okay iconation kuwaan shaashada saaran fiiriya waxyaabahan yararka shaashada saaran ay waxaan ka dhigaynaa large kuwa waaweyn medium dhexdhexaada small yar ka dhigaynaa meel banaan tageynaa fiiri meel banaan tageynaa waxaan leenahay right click markaan aan waxaan ka dooranaynaa view markaad joogto bilowga inta maxaa ka arkaysaa large icons inta maxaa ka arkaysaa medium icons inta maxaa ka arkaysaa small icons dee large kaa ka dhigo fiiri waxa dhici doono haweenkay noqdeen meel banaan raadi okay right click dheh waxaad tagaysaa waxaa loo yaqaano view tag medium aan ka dhigo bal waa dhexdhexaadkaasay noqdeen small baa aan u celinaya marka asalkooda okay view dooranaya so small icons intaas inaad samayn karto insha allah su-aasha iyaduna way ka soconaynaa lix aan u gudbaynaa lix waxay noo qoran to restore items in recycle bin waa to restore intiba usoo celiso items in xagee ku jiraan recycle bin items in recycle bin minha waxyaabaha recycle bin ku jira dib inaad usoo celiso recycle bin waa weelka qashinku wixii hadda inta aan ka tuuro waxay gelayaan si toos ay u gelayaan recycle bin waa kaas recycle bin waa weelka halka yaalo inta ka raadi hadda raadis faham fiiri recycle magaciisa raadi magaciisa daad garan weysana dee waxaad ku garan kartaa sawirka halka yaalo sawirka dul saaran fiiri gudaha u galaysaa laba jeer double click ku leedahay ama haddaysan ahayn waa dul tagaysaa right click dheh open dheh ama se laba jeer click ku dheh gudaha ku jiraa recycle waxaan kasoo hadlaya waxaa weeye recycle bin gudihiisa faadamo xaliimo shukri saddexda foore ugu jirto waxaan doonaynaa saddexdan foore hal foore inaan soo celino waa saddex gabdhood magacyadoodii xaliimihii faadamo waxaa dadka hore ay ka dambeeyeen dadka hore bay ahaayeen magacyada dadka hore weyn hadda waxaa weye shukri aan soo celinaynaa marka halkan ay la soo fiiri magacaana soo celinayna hadda shayga markaad soo celinaysa fiiri saadi waa dultage shay saan u dultagay keli marka u dhacdo salaad waa dultagay shay saan u dultagtay fiiriya keli ku dhibis keli marka ku dhacdo saan akila u dhacdo inta maxaa ku qoran restore isoo celi this item shaygan isoo celi ataaba ku dhufnay bas halka haddaysan ahayn waa dultagay bas filaarta dulgeene right click dhe bas inta maxaa ku qoran restore isoo celi hadda idin tusina fiiri shaashadeedan kaga tusina midkaad aan soo celi maxaa u qornaa shukri u qoran alfabeetka la oran meelahan uu galay lowlayaashan uu ku jiraa akraadina hadda muhiimadeyna maaha marka inaan soo celino muhiimadeyna ahayd insha allah inaan raadino muhiimadeyna maaha lowlayaashaas meelahaas uu ku jiraa okay inta mujeediin inta u yaalaan geeske okay aan ka soconaynaa okay qodobka xiga ayaan gudbaynaa insha allah xasil meeshara wax ka dhaca aan ka soconaynaa
ودينا سوء النهاية كوين سوء النودي سوء علني فحين أوجد بينا قضب كيجا أين مركز أين أوجد بينا أين نسمعنا إن شاء الله قضب كان وحنوني مركزي قضب كسدعات أيو مركزي ونغنيا قضب سدعاتين أيو مركز ونغنيا مركز أين نسمعنا بعض أوكي قضب كان قضب قضب تضاد صح تضاد معنا قرن to delete the further of the desktop to delete فيريا to delete معه تورينا ما to delete هنا تورنا the further هنا تورنا further حاول fail اسمه له يا اوكي further كا يفعل كا وحيوان شاش صار كوانو further ليش مجدين تورينا كانوا كلام تورينا امي مفرن هذا يغفر ارتو انا واحد مهم كجيران وما جيران وان دلتقينا رايت كان لينا كبعدنا علينا اوكي هذا راتو دلتقيسا waxa leedahay shift plus F10 هذا data top في راح soo qornaa shift plus F10 dano automatically waxa soo qornaa dultagaysa saan dultagay fiiriya saan dultagay shift plus F10 asda qaban delete mid halkaas kaas hada rabtana waxa leeysa waa dultagaysa raad kala leedahay delete waa toora bixina yes waa bixinaysa qodobka sideedaad aynu gudubno qodobkan qodob ku xiga aynu gudubno okay qodobkan aynu gudubno qodob ku xigo waxa uu cunoonay usaadi qodobkaas sideedaad ayuu noqonay sideed maxay noo qoran to remove the taskbar into other locations taskbar kan dhaqaajinayna waa to remove inaan dhaqaajino the taskbar into other locations again geenina tameel kale geenina taskbar kan ku tusiyo laakiin taskbar ma taqaan okay waxa ka fiirinaysa qaybta hoose ee shaashad ka fiirin mesela ana xad taskbarkay waata xariiqdaas dheer halkaas saaran xariiqda mujid halkaas saaran tan la geeska okay saad waragto sarkan bedelayna isuk siyaasi fiican aad waragto xariiqdaas bisawirkan bedelayna okay xariiqdaas la yiraahdo marka oo gees madaxan saar ay la yiraahdo marka taskbar waxaan doonayaa inaan dhaqaajino marka horeyso xaqiijinaysa waa dulgeynaya hadii hoos saaranta hadii kor saaranta dhinaca ha saarnaato beebnaantak oo iyada kamid ah right click marka dhahdo kabaadina waxa sameeynaa meesha loo masaarantahay hadii meesha ay saarantahay ma dhaqaajin kartaa may hadii meesha log iyo masaarna ma xirna aan soo laabanay marka waan dul tagayaa qaybta laftaan qabanaya laftiga halkaas aan qabanaya lafta marka qabato bilaarta wadada hadda waxa way adkeeyay bas okay way inaga diidantahay arkayna insha Allah ka way raacisa meeshaan doonayay meesha aan bilaart aan geeraa ay aadeen sidaas marka adigu una ku dhaqaajin kartaa taskbarka okay waynu ka gudbaynaa insha Allah qodobka waxaynu gudbaynaa qodobkan kale ayaynu gudbaynaa okay qodobkan waa qodobka wuxuu noqonayaa sagaal uu noqonayaa sagaal waxa noo qoran to change your account picture account picture ka ina bedesho account picture waxa weey account hadda aan isticmaalayo ku jira account ma mid ka aan isticmaalayo oo kale weey account computer ku leeyahay dhowr account uu leeyahay qofka hadda martida kugu xisab account oo sameeyay oo saga baashala hadda ka laba guri kala degantiin amal weey isana account PC waa guri oo khaas ah oo isticmaalayo okay adna sidoo kale account ka waa mail adiga leedahay oo ku gaar ah weey marka account keena sawirkiisa ka bedelayna okay taagina start button taawo marka horeyso baranka soo riix bas halkaas tag sawirkaas tag ustaadi halka ma jeeda halkaas ku dhufo kale ku dhahay halkaas marka joogto waxa tagaysa meesha qoran tahay change your picture ku dhufo sawirka rabto dooro binooni oo kale ku dhufo sawirka rabto dooro video sawirka rabto marka doorato ku dhufo meesha qoran tahay change picture security ku soo qoran security geli baad iska xir haduu idin tusinayaa sawirka inaan bedelo halka sawirka waa saas
account picture waa midka su-aashiina ugu dambeyso waa su-aasheenii tobnaad examka waa su-aasha la fududeeyo waxaa weeye waa to hide waxaa weeye standard icons iconation aan qarino standard icons aan qaldaynayaa ma aha all icons standard iconation waa 5 kuwa kamid ah user is fail okay low computer 3 control panel 4 recycle bin 5 waxaa leenahay network somo waa 5 okay shaashadan ka tusinaya oo kuwan ko waxa la yiraahdaa user is fail qofka shakhsiga iska leh kan waxa la yiraahdaa computer kan waa network kan waa recycle bin kan waa control panel oo waa setting key way mobilkaas oo setting ma laha computer kana setting kiisi waa halkaas way halkaas wax walba ka maamulaysaa waxaan doonayaa inaan qarino marka shaashadii saarayso waynu qarinayna maxaa sameeynaa meel banaan taweynaa right kala leenahay kadibna waxaan dhahaynaa waxaan ka dooranaynaa change the icons kadib waxaan kasii dooranaynaa change halkaas soo iibsaday kadib maxaan sameynaynaa halkan markay sidan ay tahay halkan sidan markay tahay hadda markay tig ay saaran tahay halkan markay tig ay saaran tahay way soo muuqdaan oo way daaway shaashada saaran yihiin way ma saa markay tig ay u saaran tahay maxaan sameynaa markay hore tigta ka wada qaaday click kana click ku dheh dhamaantood click ku dheh hadda saas uu qaad nadiif ma ka dhigtay ha ilaawin markii na dhahdo apply okay na dhahdo ilaawin sidaas aad ku dhimay hadda video ma oo daway bixin khalaas way marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad doonto insha Allah natiijo fiican examkan waa iska saalan yahay laakiin insha Allah ardaydu de waqti weyn inoo ilaaliyaa sidii loo soo kala horeeyo ayaa exam loo qaadiyaa examkan waxa weeye halkii mar waxa fadhiistay saddex arday fadhiisanayso saddexda ardayna exam ma aha waa tobankan imtixaanka ayagoo markaasi tobankan laga keenayo tobanka daqiiqad aynu sharxanay laga keenayo waxa weeye arday kasoo nasiibkiisa su'aalaha ku soo aado waxa laga yaabaa inaan ku yiraahdo aniga konton badan ku hayaa ee konton shaqayso way dhici kartaa waxa weeye inaan shan su'aal ku weydiiyo practical toos u qaadato marka tirada ardayda maadaama iska roon yihiin waxa weeye waqtigan ugu yar soo darteed halkii mar waxa soo fadhiisanaysa arday oo kale ardayga su'aashiisa loo dhiibiyaa oo su'aashiisu la weydiinayaa su'aashiisu markuu ka jawaabana uu tagayaa soo marka insha Allah waqtiga inoo ilaaliya labada group jaasha ku soo biri kartaa hadii habeenka ariginaysid hadii shanta waqti ariginaysid waqti kasta hadiiba aad ka mid tahay ardayda maanta computer qaadanayo ee barta ee ma aad ka barta daawa ka mid tahay jeeso laga rabo maanta in aad iguna jaayis waqtigaaga jooga marka si aynu u socono aynu aragno waxa weeye ardayda waxa weeye caadi waxa weeye levelkooda aynu u tijaabino in waqtigeeni maaliyacna aynu soo lumino in kale oo insha Allah examka loo wada fadhiisto natiijo fiican in la wada keeno examku marka 2 saac ilaa 3 saac subaxnimo bridge maxay dirana gaarsiyo bridge aha ayaa la wada gelay guud ahaan ardayda wixii computer qaato waxa laga doonayaa laba midkood marka 2 saac ilaa 3 saac oo bridge ma aha hadaadan heli kareynin oo waqti awood kareynin oo waqtigaas aad chance heli weyso xitaa hadii kartaa inaad 2 saac isku diyaarisi barnaamij kale soo baxaan waxaad imaan kartaa oo ku furan 10 saac ilaa 12 kala gaari intaas waa imaan kartaa hiisooyinka guud ahaan bari marka la qaadanayo caadigan waa fasax oo xiisad 5 saac xiisad 3 saac iyo 4 saac iyo waxa 5 saac 7 saac 9 saac 10 saac maadaama imtixaan la galayo xiisad ma jirto kaliya exam la isku imaanaya iyo labadaasi waqti hadii la gaarsiiyo